محمد شيخ عمر waxaad ka tirsantahay garabka la magac baxay toosinta iyo cadaaladda xisbiga muxuu ahaayay wadani garabkan aad ka tirsantahay afayeenka u tahayna waxa imika jirta in la idinka basaaray oo hoggaankiina ku jirin xisbiga xubniina kalena aynan ku jirin arinta noocaas maxaad kaga jawaabaysaa arinta noocaas waxaan kaga jawaabayaa horta ciidan aad tili way ka saaraysaa iyo ciidan aad leedahay way ku daraysaa horta waa ay xisbiga laftiisiiba kula hadlaya ma aha in cid kale oo dadkii xisbigan ka tirsanay hoggaankiisa ahaa ayaanu garabkani u yahay mana aha qolooyin dhinacyo kale iyo faragelin kale wax ka saari karaan marka waa sidaan ku sheegayo waxa weey xisbigan annaga wali hoggaankiisa ma aragna laakiin astaantii baa laynagu haystaa maxkamadaha iyo hay'adaha dawladda waxa loo gudbiyay in ma taqaanaa ayna inagu xisbigii sheegan karin oo astaanta xisbiga aad gadib la idinku qabsan doono xitaa xariga haday noqoto la idin xilay way iska hadlayaan kuwaas cid ma jirto dalkani sharci buu leeyahay hoggaan buu leeyahay waxa weyn xisbigana dastuurkiisa hay'adaha aad sheegaysa wada haysta marka waxa weeyaan xisbi asalkiisuba uu ka soo aasaasmay anigu aan aasaasay ama garab kale aasaasay ma jirto dalkan iyo dawlad iyo waqtigan imika oran karta waa dibadda ka tahay midna ma jirto cid naga saari kartaa ma jirto sharci looma laha waa dalkan dastuur iyo sharci buu leeyahay aga waxa tiin garab taagan oo cid la taagan xisbina kuma inu buuran xisbigiina wuxuu leeyahay dadka anagu waan iska saarnay dawladda naga deysa gacmaynta inala hoos cararayso halkeed ka tirsantiin maxamed sheekh idinku horta marka siyaasadda dawladda waxay ku salaysan tahay horta xisbiyada iyo ururada siyaasadda horta waa dad xora wadada waxa weeyaan waa xor weey marka anagu waxban haysanaa waxa weyn xisbigii dhanaaye xisbi qaran baabano haysanaa xisbi qaran weeye xisbigii qarankii un baan imikana dabadiisii joognaa isagii baan ka cid nagu haysataan ma jirto ninkana waa nin garab kale oo isagu waxa weeyaan isla xisbigii uun marka anagu hadaan wadanahay garabka toosinta iyo cadaaladda cid nagu qabsan karta inaan ururkaasi ama xisbigaasi qaran inaan anagu lahay astaan u dhahay cid nagu qabsan kartaa ma jirto horta waan baa leeydiin la yimid waxa la idinka war wixii dhacayba rag ka dhaliyay in baan soo marin wax kasta oo dhacana adduunka maxamed sheekhow garabkiina hogaankii ugu sareeyay xisbiga idin yimid doorasho iyo qof laga badiyo oo tartan intuu galo laga badiyo horteed Axmed Muumin Said ugu horeeyay oo intaasoo nin baa doorasho ama madaxweynaha ahaato ama ku-xigeen ahaato ama xildhibaan baa ahaato ama maayir ahaato intaasoo qof baa laga soo guulaysanayay waxa idinka garabkiina Axmed Muumin Said hogaaminayo had iyo jeer aad ugu dhagantihiin aad leediin tana sidan iyo tana sidana aad guusha iyo guuldarrada labada midna waxa meel ilaadaan waa maxay waa runtaa waxa weey rag waa laga soo badin jiray rag waa laga guulaysan jiray haddana way iska samri jireen laakiin waxa weey nin kuwaasi awal waxay ahaayeen kuwa aan meelaha ama xisbiyada ama ururada siyaasadda waxa weeyaan aan hoggaankiisa ahayn ama aan hoggaaminayn laakiin maadaama garabka yagan uu ahaa hoggaankii xisbiga sifihii shirweynaha la soo dhowdhoobay lagu qabtay hotel ambassador magaalada Hargeysa yaani sida waxa weeyaan qaabka bahdilaada iyo sida wax loo maamulay iyo sida loo baalmaray sharciga dastuurka ayaa waxaan qaadan karnaa ma taasi waxaan aqbali karnaa ma waa in runta la isku yimaada oo cidii gardarrada halka la soo dhigaa cidii kale ee xaqna xaqeeda halka soo dhigta laakiin anagu uga tagi mayno ya inaan gorayacowl uga taga waa wax soo goray nin baa laga hatima cadda laga haya marka arrintaas aan kugu sheegaya maxamed sheekh imika dalka Mareykanka aad arkaysaa Hillary Clinton wadanka waxa la yiri dadkii codeeyay way ku guuleysatay haddana tira ayagu de garanayaan oo ay isla yaqaanaan oo haatan goboladii waxa la yiri tiradii lagu noqdo dalkii iyo dadkii Mareykanka waxa leen doorasho mar bay dhacday noocay doonaa u dhacdo waa la guuleystay ama ha qalaalaato ama ha macaanaato qofkii laga guuleystay waa laga guuleystay sababta ugu qancin kar laadin Axmed Muumin Said in la imka in laga guuleystay maxay tahay waxa cid nagu guuleystay iyaan arkaynba cid sharci ahaan naga guuleystay ma aan arkayn way golahan dhexe waxa weeyaan ee xisbigu wuxuu ahaa 215 buu ahaa garab kale oo ku soo biiray baa lagu soo kordhiyay 400 baa la gaarsiiyay waxa de meesha ka dhacay malaha xisbi kale oo ahay wadani ma ahayn shirweynaha meesha lagu qabtay aad sheegayso hotel ambassador de malaha wuxuu ahaa shirweyne kale shirweynii xisbiga sax ahaa ma ahayn wax kale oo ahaa ambassador anu waan joogay adiguna waad joogtay dhaliil inay jirtay oo xisbiga dad iyo tiro aan loo baahnay la keenay laba isma weydiinayso waa cadda oo aan arkin wixii ka dhacay meesha haddana waxa la yiri si ay
xeelana fandaal ku hesho fandaalna xeelo ku hela afna uu ku nabad galo ilkana xeegana xeega ku noqoto ilkana ay ku nabad galaan mar kasta halka lagu soo dhawaada miyayna idinla qurux badnayn garabkiina xisbiga wadani ee iminka toosinta iyo cadaaladda la magac baxay ee haddana xisbigii laga saaray siyaasadda inaad meelun ka soo jeesataan horta waxba idinka qaldan waxa idinka qaldan waxa weyn xisbigan cidda laga saari karay iyo cidda meeshan lagu dari karo horta inaad kala barataan xisbigan cid naga saari kartay iyo annagii baba sheeganayna xisbigiiba oo annagii ba asaasiyaasho madax ka ahayn oo hoggaan ka ahayn cidda naga saari kartay oo hoggaan xisbi sheegan kartaana ma jirto haba yaraatee marka waxa weeye waxaad ku qanacdaa waxa weeye sida haddii sharciga la raaco waad ku qanci kartaa laakiin ma aqbali karno bahdilaada iyo waxa garabka iga meesha ka dhacday waxaan aqbali karna ma xan kala jirta waxaa la leeyahay axmed iyo maxamed sheekh iyo akhyaarta noocaasa dhabarka ayaa loo salaaxayaa dawladda sabasabaynaysa arrinka noocaasa xisbiga kulmiye layndii ku aanayna inaad tegaysaan horta xisbi waxa weeye anigu arrimaha xisbiga dawladda ka hadli maayo ama xisbiga xaakanka arrimihiisa kama hadlaya anigu laakiin annaga wadada noo haysanaa waxa weeye wadadii sharciga ahayd ilaa aanu ku kala baxno wadanigan xisbiga wadani ciddii xisbigaasi dhaawacday ee dhibaatada u geysatay iyo cidda lagu gafay cidda dawlad baa jirta adeer in la kala saaro annagu waxa dawlad iyo arrimaha kulmiye iyo waxa annagu ka hadli mayno iyo waxa weeyaan waa hawl kale oo idinkeedii taala laakiin ma taasi midna ka hadhayna ma 24 saacan soo dhaafnay dalka mar kaliya ayaa sida fiinta loo qeybiyay madaxweynaha Soomaaliland oo hadal yiri iyo marwada maaliyadda maamulsha marwada Samsam Cabdi Aadan oo iyadna ka hadashay taageerada gudoomiye Muuse Biixi Cabdi ana musharax xisbiga kulmiye ka siyaasi ahaan maxamed sheekh iyo ka garab ahaan maadaama adigu cadaalad baad ku abtirsanayso hadallada madaxweynaha iyo Samsam ku hadleen hadalla cadaalada oo dalka iyo dadka wada karamayeen mise ma هذا سيادتك سألوكتهاي وضن كان وحويا مامولكي سو كلا دوان yahay waa maamulka dalku waxa weeyaan qaybu kala leeyahay gobollo kala leeyahay beelo kala leeyahay waxaanu kala leeyahay siyaasado iyo isbaaysiyo u gaara marka wax madaxweynaha iyo Samsam iyo Xuseen waa arin u taala beelaha bariga u taala ma aha kuwa awdal Xuseen ma marka sidaas aan arintaasi ka hadalkeeda aan wax alla wax sharci u lahayn dalka iyo dadka waxa tahay siyaasi muddo dhowr iyo 30 sano baan iraahdo maxamed sheekh marka siyaasad laga hadlayo qof aad siyaasadda ugu abtirsadaa tahay maxamed sheekhow dalkii markaad qiimayso haatan halkuu marayo haddaad ama wax qoraa ku soo jirtay ama qiimaynta kale siyaasadda aad ku soo jirtay dalku doorasho maanta ma gali karaa mise ma gali karo dalku wuu gali karaa dalku sidii awal wax loo dooran jirayna waa loo dooranayaa marka iyaan taasi horta wax walwala iyo wax walaaca iyaan dalku ka qabay taasi ama dadweynaha reer Soomaaliland doorasho way dhacaysaa madaxweynaha Soomaaliland wuxuu mar uu ka hadlayay xarunta shaqaalaha oo ay ku qalin jabinayeen arday hay'adda shaqaalaha dawladdu ay bartay xirfado iyo shaqadii dawladda loo carbiyay wuxuu sheegay inaanan dawladdu ayna ku dhaxmilmin asxaabta mucaarad iyo muxaafidba oo ay xiriyoog iyo ku eegadaan xafiisyada ay dalka iyo dadka ugu shaqeynayaan haatanna habeen dhaweeyda uu ka hadlayay shir ay beeshiisu la gashay musharaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga kulmiye wuxuu sheegay inuu aad ugu mahad celinay taageerada mugga iyo miisaan kale u fidinaysa beeshaasi Muuse Biixi Cabdi eriyada noocaasi ma noqon doonaan kuwa madaxweyne Ziiraanya oo wadankan doorasho kaga qaban karo arrintaasi waa arrin khusuusan beelaha bariga tiim baa dib ugu soo celisay oo si kala aad u dhigtay baad igu soo celisay arrintaasina horaan kugu sheegay waa arrin khusaysa heshiisyada iyo arrimaha bariga beelaha bariga Soomaaliland khusaysa ma aha arrin khusaysa beelaha reer awdal marka taasi kama hadli karo laakiin soo ma ogid madaxweynuhu inuu shacabka kii doortay iyo kii aan dooranba madaxweynuhu yahay adigoo cadaalad la baxay iyo muxuu ahaa qofka kale muwaadinka inuu madaxweynuhu u yahay madaxweyne maanta dalka mucaarad iyo muxaafid waxaan aaminsanahay kulli madaxweynuhu cadaaladda raacayo ayaan aaminsanahay oo waxa cadaalad marnaba isagiyo xisbigii uu soo taladiisa soo hayn jiray baan ku dhaqaaqeen wax cadaalad ayaan aaminsanahay marka taayadan cadaalad buu ka gaari doonaa ta doorashooyinkana cadaalad buu ka gaari doonaa mustaqbalka dalkana cadaalad